erayga sugaan waanu markaa ka hadlayaa waxa laga weydiin karaa waxa sugaantaahun haddii cidi wax weydiinaysana waa waxa sugaantaahun baa ka hadli karaya waxa ku kala farqisan tihiin halkan u baani balo siyaasi diibi ma yihi waxa la sugaanyahan diibi oo waxa idin kulmiye ka hadlaya waa tahay sugaan erayga sugaan مصطلح يعني technical term بالله erayga sugaan waa eray macnaha marka uu la macno yahay literature amba uu la macno yahay al-adab wuxuu soo baxay 22 ayaa guddigii af Soomaaligu waxay afgaalada lagu yaqaano literature ama lagu yaqaano afka Carabiga al-adab ayaa guddigii af Soomaaligu oo sameeysay eray bixin u sameeysay afka Soomaaliyeed kadib markii lagu dhawaaqay kadib ayay waxay u bixiyeen erayga sugaan bay u bixiyeen waxa literature loo yaqaano afka gaalada lagu yaqaano afka Soomaaliga afka Carabiga lagu yaqaano al-adab eraygu macnihiisu maalinta muulan eraygu eray ahaan wuu jiray ilaa iyo ibkana wuu jiraa waxaanu leeyahay macnayaashiisii kale oo Soomaaliga ku lahaa horta eraygu leeyahay eray maawa ahbaalintaas uu la sameeyay baaha waa inuu jiray macnayaashiisina waxa baalsay macnaha cilmiga ah al-adab abalita jalbuu yeeshay 22 wali wuxuu af Soomaaliga ku leeyahay macnayaal kale iyadoo lagu xisaabtamayo gobolada kala jaalka ee dadka Soomaaliyeed ay ku nool yihiin dadka qaar waxay sugaan u yaqaaneen marka roobku da'o qayoodka dhaca saxada udgoon ee dhabata sanka la raaco ay dadka qaar waxay dhahaan sugaan baa dhabaynaysa dadka qaar waxay u yaqaanaan marka dhulka oo abaaraha roobdo ugbaadka ugu horeeyo ee soo fufahay saaca cagaarka ah ee soo baxay ilaahay meel heblaayo xogaa sugaana bay leedahay oo dog bay u yaqaaneen aanu inta qaanood inta ka qaano waxa laga yaabaa cid kale oo macnayaal kale u taqaanaan inta ka qaano bashiiye dadka qaar waxay u yaqaanaan marka xanuunka la tumo shaandada la qaato dadka qaar shaandada bay yaqaaneen shaqshaq bay u yaqaanaan shaqshaq la qaato sidaa lagu yiraahdo waxa ka dhaca waxa hoosta mara xanuunka intiisa dixiinka ee budada abaabarta xagga sarena waxa ku soo hara inta kale ee la sii tumayo baa ku soo hara inta dixiinka ee dhacda ayaa dadka qaar u yaqaanaan sugaanta xanuunka ay u yaqaanaan intaasoo anigu macno Soomaaliga ku leedahay waa la qaar waxa laga yaabaa in macnayaal kale leedahay markii af soo erayga sugaanta loo sameeyay erayga sugaanta waa joogay markaa guddiga Soomaaliga waan ku jiray qolada budada qaatay ayaa mala wax waliba hadii uu wax waliba wuxuu hadalka malaa'iktiisa dixiinka barisu inta yar dhaafta shaqshaqna faraha u macaanay aragteen sugaantuna mala waxay noqonaysaa hadii afka la eego intiisa yar shaqshaqna dhaafaysa ayay noqonaysaa shaandada dhaafaysa dixiinka ayay noqonaysaa horta sugaan macnaheedu waa taa sugaan waxay u qaybsantaa laba waji bay leedahay erayga sugaan waxay leedahay waxa la yiraahdaa tix iyo tiraab ay u qaybsantaa tix iyo tiraab afka ingiriisiga anu ingiriisiga la qaanaa talyaaniga baa qaado carabiga waa la qaan ingiriisiga Swedish-ka baa qaado isaga ka waa la hubaa inaan noqon talyaaniga baa qaado waa shaac bay sheegi doonaa waxa lagu yiraahdaa tixda afka ingiriisiga poem baa lagu yiraahdaa poetry tiraabtana prose baa la yiraahdaa af carabiga haddaa qaato waa nadm iyo nasr baa lagu yiraahdaa nadm iyo nasr ayaa lagu yiraahdaa nasr waa tiraab nadm la wax weeye
وحوي وتحدى waxay Soomaalidu qaadatay eeg tixiya tiraab waxay leedahay eraygu labada eray wax meel bay daaraysaa erayga labada eray laftooda ayaa waxay u fududeeyeen xusuusta markaan doonayso suugaanta waxay u qabsataa lagu yiraahdo labada eray isku xaraf bay ka bilaabmaan tix ta iyo ta tix tiraab bay ka bilaabmaan Soomaalida af Soomaali qoran ma qorayn muddo dheer ma qorayn waa afdheeyay qoraalkiisu sidoo sanood yahay marka dadkeenu waa oral suugaanteenu waa suugaan afeed wax la yiraahdo suugaan afeed oral literature weey ko adab shafawi weey waa tahay xusuusta waxa fududeeya xaraf raaca wax la yiraahdo xaraf raaca waxa lagu jeedaa erayo isku xaraf ku bilaabma oo qaar lamaanayaalihii bay Soomaalidu isticmaashaa afkeeda ku badan oo ay markay doonayaan inay wax xasuustaan tixiya tiraab bay qoranayaan kafal iyo kaw dooc iyo dareen rag iyo ruux joog iyo chief tiro iyo tayo af iyo adil ee lamaanayaal baa lamaanayaal war iyo wacaal wariyo wacaal waxaa jira Soomaalidu marka ay waxay xaraf raacaas aad labada eray isku lamaanaynayso laba eray oo isku xaraf ka bilaaba la isku lamaanaynayo waxay fududeysaa xasuusta inaad xasuusto sidaan xagga dambe ku soo sheegi doono xasuustay fududeysaa Soomaalideedu maxkamadaha markay joogto maxkamad geed bay leedahay geed bay isugu iman jirtay waana isugu timaadaalay imika inta fartalyaaliga iyo Ingiriisigu ila qasin dadku geed bay isugu iman jireen maxkamaday lahaayeen dad xayawaan oo gaaladu dabada ka jartay maynaan hayne dad ilaahay abuurtay oo diin loo dhaqan loo geedka hoostiisa ku dhamaysta ayuu hay imika waxay la dilay bikaanti kale doonay wax ku dhameeyaan haday geedkiisa tago la oo dhamaysta la barbalaya geedka labada fudud geedka hoostiisa waxa laga dadku wax ku dhamaystaan waa tahay marka dadku istigo gari dhaxbarto erayada Soomaalidu goboladu kala taajaan erayadu ha noqdeen laakiin si kaliya ay maxkamadooda u wada dhigtaan oo geed baa la isugu geedka xeerbeegti baa joogta reerka ka tirsan oo dadka kala saarta waxa la oranayaa yaa dhibaaba tirsanaya baa loo jiray anigu inta soo gaadhay kulliba yaa dhibaaba tirsanaya dhibaaba waxa weeye wax cidii dib sheeganaysa marka dadku isqabto dib baa la kala sheegtaa dibta xeerbeegti baa loo tagi jiray loolana tagaa imika miigana loo tagaa ko marka dib la sheegto hadaad dib sheegato oo ninka hebel la yiraahdo dib sheegto ama reerka hebel la yiraahdo ay dib sheegtaan odayaal baa fadhiya xeerbeegti oo kala saar waa kuwa imika la fasakhay la baabiyay ee mooryaatu ka qaatay xilkoodii way waa tahay waxa la oranayaa waxa la isku hayaa wixii arrinah la isku hayo laba loo qaybi jiray loola qaybiyaa waxa la yiraahdaa ma waxa arinku ma dhul iyo dhaqan baa horta uu leeyahay laba xaraf oo isku mid ah la isticmaalaya inta uga dalay waa taa tixiya tiraabtii oo kale si loo xasuusnaado erayada maxkamadaha legal terms waa erayadii qawaaniinta hadii loo yiraahdo joogaana way aad uga faa'iideysan karayaan kiisoo dhabi af Soomaaliga waa dhul iyo dhaqan waxa la wixii dambiye dhacaa Soomaalidu waxay u qaybisaa laba dhur iyo dhaqan bay u qaybiyaan ma dhur baa mise waa dhaqan baa loo leeyahay waaya hadduu dhur yahay waxa la wixii dambiye ee dhiig ku saabsan dhur baa la yiraahdaa waxa la wixii ka soo hadhay ee nolosha ku saabsan ee dhaqamaantii kiisas la isku haystaana dhaqan baa la yiraahdaa kiisoo dhabi waa labada ama waa dhiig ama waa dhaqan baa loo leeyahay wuxuu ka kooban yahay laba xaraf oo isku dhawaaq ah dhur iyo dhaqan waaya waxa la oranayaa badhur waxa tiri anu kiiska alle waa dhur baa leedahay yani waa dhiig baa loo leeyahay shaqalayaan hadduu dhur yahay faylkiiba u baariyay dictionary-goodu bay ka baariyaan xusuusta ahaa ay ka baariyaan
kiiska dhiiga hor dhiig hadduu kiis dhiig ba yahay oo dhiigba la isku haysto laba buu qaybsamaa Soomaaliga laba waxay odhanayaan ma qurbaa mise waa qoon ma qurbaxday baa qurbaxday mise waa qoon oo waa nabar waa qaafle halkaas soo waalkiisa waa qaafle hadduu dhiig yahay waa labada kiisoo dhambi ama waa qulbaa baxday ama waa qoon baa laga hadlayaa labadaas soo qaybsamaya kiis labaad oo dhiig oo Soomaalidu qaadaa ma jirin waa yahay waxa la oranayaa maya kiiskaygu waa dhaqan baan isku haysanaa odayaashu waxa oranayaan markaa ma xilaa bisa waa xoolo ayaa la oranayaa markaa hadduu kiisku kiis dhaqan bay yahay waa laba bay Soomaalida ka ahayd midkii saddexaadna ma jiro dadku waxay ku murmayaan amba xoolo isku haystaan amba dhaqalahaado ama mid la kala dhacay ha ahaado amba talaadu xoolo u baa la isku haystaa ama xilaa la isku haystaa naag maxkamad baa la isku jiraa naagti baa la fulayaa naagti baa la qaxirayaa mid baa doolan dumaal weeye xigsiisa weeye kiis dambeyle oo waa fayl dan kiiska dumarku marka kiisoo dhambi wuxuu af Soomaaliga ugu qaybsamaa xilo iyo xoolo ayaa waxa lagu fududeeyay xusuustii xaalay baa la qaatay oo waa xilo iyo xoolo u dee waxaad oranaysaa odayaashu waxa oranayaan waa xoolaad leedahay ma xilo iskuma hayle waa xoolaad leedahay odayaashu markaa way yara faliisanayaan faylkii bay baarayaan kulkaa waxa oranayaan ma barbaa mise waa beer ma bar xoolaad baa waxa la isku haystaa ma bar xoolaad baa mise waa beer baana kaleeyda waxa lagu jirin marka kiiskii wuxuu noqonayaa kiis bar xoolaad la isku qabsado ama beer baa la isku qabsanaya dadku labadaas bay hadii xoolo isku haystaan labadaas bay isku qabsan jireen waaya waxa la oranayaa ma waxaan isku haynaa xoolaad la isku hayaa oo waa bar xoolaad baa la isku qabsado odayaashu markaa way feelkii bay baanayaan waxay oranayaan ma magan baa mise waa mooro ma magan baa mise waa mooro xoolaha laba u bay noqdaan xoolo xerada ku jira oo magan ah oo xero u dhalana yaa isku qabsada walaalaha dhaxal baa la isku qabsadaa oo waa xoolo xeelaha ku jira xaladii bay ku jira xoolahaas waa mooro xoolaha moorada ah moorada waxa la yiraahdaa xerada af Soomaaliga mooro hadaad maqasho waana la mooro duugay waxa weeye waana la xerada loo cadeeyay xooli baa laga baabiyay mooro duug waa yahay mooro hadaad maqasho waa xero marka waxa la leeyahay kiis kasta oo mooro ay haduu xooluhu mooray noqon karaan waxa isku haysta mooro walaala isku haysta dad isdalay baa isku haysta ilmaadeen rubaa isku haysta waa mooro waa wax dhaxal ku saabsan oo bahdi yareed baa bahdi weynad ku haysata kiis bay leedahay oo kiiska moorada waa la yaqaan sida loo qaado haddii kale xooluhu waa magano baadi bay kugula joogaan oo magan bay xooluhu ku yihiin ama dhacbaad ku heshay oo ay kugu soo galeenoo xoolahaas xoolo xerudhalana maaha waa xoolo magan kugu yibiyo sibaa dacwadooda loo furaadee oo ammaano raagtayid baa la moodaa gaadiid qaad baa ku jira haddii ku roodahay halal laysa siiyo maale baa ku jirta oo la ka dabaaciyo oo waa galayaan magantay galayaan baadi baa ku jirta dhac baa ku jira tuugaa ku jirta kiiskaasoo dhan waa kiis kale oo waa magan ayaa loo odhanaya oo labadaas soo bilqaaday marka kiiska la kala qaado ayaa la isu imanayaa waxaa loo odhanayaa dadka qaar waxay isticmaalaan laba xaalaa lagu kala baxaa Soomaalidu waxay diintii bay ka soo qaadanayaanoo albayinatu calaa man iddaca walyamiinu calaa man akar baa layidhi oo waxaa dhaar baa laga doonayaa haddii ninka muduciga yihi hadduu sheego hadduu markhaati keeni kari waayo hadduu caddaysan kari waayo
كودارا لليدي وحال ليه ما وحال ليه مدعي ومخاتكين مدعي وحال لقى ربا وحال إلى هذا هاي إيه الشيء يسمى مرق ما هيستا هدو مرق وايو عدة في مداعنها لليه كدارو سياسة الدين في السوق الجسدي اليمين على عمل الدعاء اليمين على عمل الدعاء البينة على عمل الدعاء البينة على من ادعى واليمين على من انكر بين قولس مرخاتي با laga rabaa marag ba laga rabaa qofka mudduciga ah qofka wax dafirsana waxa laga rabaa dhaar ba laga rabaa marka waxa loo leeyahay marka kiiska la isku qabto ayaa waxa lagu leeyahay milad iyo marag ba la isweydiinaya milad iyo marag ba la isweydiinaya marka waa miilay markaana milad iyo marag ba lagu kala baxaa milad amba dhaar ba lagu kala baxaya milad waa la dhaaraya ama marag ba lagu kala baxaya ayaa kiis lagu kala baxaya haddaad tagto dhulka Jabuuti iyo dhulka Ciisuhu degeysay haddaad tagto waxa oranaya xeer iyo xaagaan bay ka hadlaan iyaguna wax la xeer iyo xaagaan ay ka hadlaan oo waxay oranayaan mar garcada waa la isku qaadaya garcada way waxa leedahay aniga xeer hal lay mariyo waxa weeye sida sharcigu sheegayo ma ku baxaabad leedo xeer baan qaadanaysaa dacwadii marka la qaado ayaa lagu weydiinayaa xeer baan qaadanaysaa mise xaagaan dadka qaar baa oranayaan anigu xeer baan kala baxaynaa xeer baan kala baxaynaa macnaheedu waxa weeye yacni anagu garcada way sida kitaab ku taala ee xeerka Soomaaliya hal lagu kala xukumo baan leedahay xeerku waa sida kow dadka qaar waxa oranaysaa ma xaagaan baan qaadanay xaagaantu waa baxay waa xeer jajab baa la yiraahdaa gobolada qaarna waxa laga yiraahdaa xeer jajab oo waxa oranaysaa yeelkeedii inkastoo gartaydu caddahay haddana ayeeyday bariga ayeeyday jabtay ayeeydii baa u soo gurbatay halka abaal bay lagu lahaayeen xaagaanta marka kiiska boga xeerka la qaadi maayo xeer jajabka la geliyaa marka ayaa la geliyaa xarfaha isku xarafraa ereyada xarafraa leh waxa la isticmaalaa waxa yaani because afkeenu waa sugaanafeed lamaanayaashaasi xarafraa leh ayaa waxa loo adeegsadaa in wax lagu xasuusto marka sheekadeedii aan ku soo noqdo hadal baa ka ila galay tixiya tiraaba taagnaa igu caliya tixiya tiraaba ila gashay waa tahay marka aad gabowdo maaragtay oday si gabowdo maskaxaada wax ka bataan erayga lagu salaabad kula sii galaya diiwaan kale ku galaya adoo meel haystay ayaa diiwaan kale galaysa laakiin si kale ma hadee faayadara bay ahayd faayadara ilaahay baan marinaya waa tahay fixiya tiraab ku soo noqo af Soomaaligu lamaanaha saalaysta waxa la yiri suugaantu waxay u qaybsataa tix iyo tiraab تحية ترابتو تحدو واحد waa hadalka tixda tiraabtu maxay ku kala duwan yihiin horta tixdu waa hadalka leh waxa la yiraahdaa tixdu waa hadal kasta oo leh xaraf ra iyo habdhac ay leedahay tixdu waxay kala leedahay waa la xigtaa waa la soo xigtaa iminka tixdu waa wax la wixii maasa ah gabay ka samaysan baa la yiraahdaa nooc kasta ma ahaatee tix waxa la wixii sheekada ma tira uma taqaanaan dawladda qaanuunka yaqaan suugaane sheekada qaar baa ayaa suugaan hadalka caadiga gabayeysnayn novelada iyo sheekooyinka gaaban ee la qorayo qawaanib qayb suugaanta ka mid ah koow marka tixdu iyo tiraabtu marka hore waxay ku kala duwan yihiin ta fudud hadaan qaato farqiga u dhaxeeya waxay ku kala duwan yihiin tixda waa la soo xigtaa waxa la xigtaa waxa weeye نصوص تيدا الآخرية تحدى سيدي قفك يدي أيوم بالله قولك كلام أفجريسي واحد يقولها verbatim أفجريسي واحد يقولها verbatim بالينا هذا يوحو تحت هاي وحلو سوعليا سيدي قفك يدي لي شيء أنا هتقان تابب كاقوان لي شيء أنا هتقان تابب كاقوان iyada batoli wuu agyahay waa sakala taale tayday cuslaysay maxaan tarinidii cawday bud li bakhayl baa yiri halka waa bakhayl waa maamaada bakhaylka marka qolka bakhaylka wuu qolan karaya caaw hayga qolka
waliba Yurub khaylimadu way yara baantay de oo baanki wax ka yar suubiye oo waxaad leedahay de dibaa wuxuu yiri wada bataydi baa de maxaad kala qaban karaya marka telefoonaduna way ku yara badan yihiin oo subaxdii baa telefoon badan idinku soo dhacaa ayaa bal iga soo waxba baqtiyay xaqii wadankii markaas waxaad leedahay dhiishayda qaanaha taqaan taababka go'an dhiishayda aanaha adna halka abshaar kugu haysta dhiishayda qaanaha taqaan taababka go'ane iyadaba toliigo wadiyahay waa sa kala taale tayday cuslaysay maxaa tariin xawday eeg ما صدع سيدي جبايا سيدي لكي يدي ويدي وبالو لا يهي دغو لباقي ما سيدي يدي وخالو لا يهي انغو سيدي ويدي وخاليدها في انجليزيga verbatim balida verbatim waxa weeye xigasho waa marka af carabiga waxa lagu yiraahdaa nusus yani naski baan oranaya waxa lagu yaqaanaa tixda ninku marka uu tixda sheegayo waxa laga rabaa inuu naski sheego hadii kale uu jabayaa uu jabayo gabaygu uu jabaya waaye rag waxa ku maamulay aqaan ama ku maamusi wuxuu sawaabahay iyo intaan ma ka soo gaaray rag waxa ku maamulay aqaan ama ku maamusi masaayinaanu lahay oo tolima meeltan loo tahay ninkii masalaha ninkaan ii dhigayn midig ma saarayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeeshay ilaahu ku naxariiso saahid qamar waayahay waxaan u akhriyaa erayada verbatim baalaya sidii uu yiri ninkii marka tixda waxa lagu yaqaanaa waxay tiraabta kaga duwan tahay waxaan u akhriyaa verbatim sidii uu yiri sidii uu yiri gabayaagu laakiin safay markaan tiraabta ka hadlayo waxaan walo halkii inaan walo halka fadhida waxa loo ku weerareen ku baandareeyaa ku haysataan meesha la kula sheeg kama andarin kuwii xagga ka yimi waxa looga soo sheekeeyay sheeka Soomaaliyeed baa looga soo sheekeeyay ayayda diiniyad caawi kaaga soo sheekeysay ay sheekadii ha dheeraa lagu bariyay cigaal shidaal baa laga soo warramay boqorkii geesaha lahaa baa looga soo sheekeeyay haddii ku rooyahay waxa looga soo sheekeeyay intaas oo sheeko oo sheeka Soomaaliyeed baa looga soo sheekeeyay oo caruurta markay reer qalabaad diini cad awal looga bilaabay ayayda markay ku sheegisay sheekada kuugumay sheegin sidii ay ayaydeedu ugu soo sheegtay kuugumay sheegin waxay xafiday nas sheekada murtideedu bay xafiday murtida tabada dacwadii baa qodox muday tabadiikii baa ka dheereeyay tabatina dheeray tabada qaloo roob bay ka galeen waxaad garaysaa dee la galay laakiin aduguna markaad inankaaga inuu ka warramaysaa bayna taadayaan sidee ayayda eryaday kugu tiri ma xasuuslid waxaad ka xasuusataa قالت لي جدتي ما قالت لي جدتي ما معناه ما قصدت شكدي واحد معنيه يعني marka sheekadii baa akhriyaysaa wixii macnaheedu aha ma akhriyaysid nusuustii marka waxa la yiraahdaa sheekooyinkeena tiraabta folklore-ka ah marka la isaga soo sheekeynayo waxa la isu verbatim lagu akhriyo waxa la soo wariyaa waxa la xasuusnaadaa sheekada macnaheedu baa la xasuusnaadaa markaas qolo waliba erayada iyada u samaysa cidda markaa warabaysa ayuu baa erayada his own words ku taxaa ma aha necessarily tii uu soo maqlay markaa tixda tiraabta farqiga ugu weyn kala bedela waxa la yiraahdaa tixdu waa la xigtaa nusuus baa lagu akhriyaa ta kale lagu akhriyo مثلا aniga ayidii waxa iga shakeysay boqol gees leh ayay iga soo shakeysay waxa ku tiri boqol baa gees laha boqol ka geesaha laha qaar waxa ku tiri waxa arkay nin baa arkay khaadinkiisa iyo waxa ku tiri mitibaa xiiriyay baa arkay inuu boqolku gees leeyahay baa ayuu arkay koo waxay tiri kolkaasuu deela waa boqorkii oo khatare geesihii buu sir buu arkay odaguna uu qari jiray boqorkuna uu qarniyay bal qof aan mala halka fadhiyo oo looga soo sheegay u marin ma yiru jiro
oo yani laakiin se gaariga say ugu shaqeysay saasuu baahay waxay iga shaqeysay inuu geesa lahaa dabadna inuu geesi arkay dabadna linkii arkay inuu boqorkii ku yaadhay yaa weylak maraqaaga haddii lagaa baqlo dabad waxaan ayayday igu tidhi waayahay buu dayri lagu baqayaa boqorkaa dilayee lagu baqayaa kolka waxa la yiraahdo calooshii baa yara weynaatay waa subax walba baa ku korodhaa waa subax walba waa ila warkii baa dee ayaa ku fiday baa igu tiri islaantu dabadna maalintii dib u qarxi gaaray ila sirtii waxa la yiraahdaa waa Soomaali lagu yiraahdo war qariib wala yahay uu qari kari waayay dabad markii uu qarxi gaaray ayuu dacararay oo magaaladii ka baxay oo meel bogde magaalada dabadeeda uu tagay oo dabadeed uu god qoday oo dabadeed hareeraha eegay uu isbitaal ay magwa boqorku geesu leeyahay alooshi waa saasay ku tirade way soo yaraantay bay ku tiri ay idinka way ku tiyaayeen ay ka Soomaaliya waa isku mid dawlad min biriga wasqi dabadeed uu lafisay markuu lafisay meeshii xagga dambe ogaa sheekadaasi sidii ay igu akhriday idinku ma akhriin waxa la yiraahdaa waa tiraab weeye marka كون أنا قلت مركي أحد سيدات كيبان ما يسوي بدله إسلا شيء كذا يقدروا فيه وكل في شيء وحلا رموز بمربع قبل ياقو حبوا بعضها ظروفها هذاك بالكلون يعني رموز بو بعضها يروح حكوش ياقو مركا وحق ما يصير أنا قلت إسلا شيء كذا أنا قلت السياسة قلت شيء ده أيام لكن سيد إنت ما دافن يدا يقول فلاتي سيدي أيدي شيء كذا يقول شيء أيوم بقى أنا قلت شيء dabadna uu laki wax kala soo baxay oo kala soo baxo baadayni Soomaalida baadayni xaliyay barigaas waa sideetakii waa dhaxdhiga markaas aniga ma sayda akhriyayso idoo waa isla sheekadii waxa laga rabaa verbatim waxa saalo maraan gabanaha bari galabaan adowgeegeedu fadhii jiray sheeko kooban kaga guray wuxuu yiri guyaal hore boqor geesalaa jiray oo goostay waligii inaan inta lagu garan fule waagadiise wuxuu goorba hubiyo gedfo oo cumaamado galxiir baa sirtii helay godob buu satarsaday garashadu u sabab tahay nin gafaana laga dhigay hadduu gaabsan waayana inuu gowrac jiro maqal hadba giirka loo kici goldolooladu helay inay gudubta loo diiday isla waagartiisay wargun tabay la foolqaan hadba gaadhka meel dhigay goobyaalka leylkii kolkay gama iswaayeen geli dhexe rugtiisa iyo gurigii ka soo bood gudcur beegsay duurkiiyo geliya dugaaga leh wuxuu gabi dhacleeyaba kolkii waagu galac yidhi geed hoosti faadfaad sida bahal goddeer quday dabadeed gafuurkiiyo gadhka ciidda saariyo goofkii sirtuu helay gaagaabsi ugu sheeg dunucdiina gaadhsii inuu boqorka goojaa madax goodir leeyahay markaa basaas yar baa soo maray oo qoladii warkii qaadi jirtay markaas waxaan hadday igama geysida waxaad iga guraysaa sheeko bari lahayn kale yuu qaadi baa isla qaxdi hadday igama geysida waxaad iga guraysaa sheeko bari lahayn kale geesigu warkiisii ku caburay kolkuu galay garbihiisa laga duul gabigiis fuday duqoy goobtiina aasiyo ka hurgufay guyiisii galbay oo ka sii socay ka gadaala meeshii laya goortii roob helay geesaa ka soo baxay maasadaas oo iyaduna isla sheekada kaaga sheekeeyaya haddaad istiraahdo akhri waxaa lagaga baahan yahay inaad verbatim u akhrido labada baa ku kala sheegaya yani waaya tixdu waxay kaloo leedahay wax la yidhaha xaraf raac oo ay kaga duwan tahay tiraabta waxay leedahay wax la yidhaha xaraf raac waxa weeye alliteration bay leedahay tixdu waxay leedahay alliteration waxaa la yidhahdaa af ingiriisiga lagu yahaa alliteration waxaynu afafka kale kaga duwan lahay aynu dir shalay baan qola macallimiina u sheegay afkeenu wuxuu ku yaala horta waxa anigu eegay afkeenu wuxuu ku yaala geeska bari baynu ku noolaa geeska bari waxaynu xad la leenahay
Djibouti oo iyadu waa Soomaali bay ku hadlaan laakiin Djibouti ta afar baa ku nimanka afar markaan xuduudaha iska dhaafo dadka Soomaaliyeed baa ka hadlaya waxay xal leedahay dadka afka Soomaaligu wuxuu xal leeyahay afar uu leeyahay afka iyo Oromo ayuu dhinac kaga leeyahay iyo Booran iyo Sahul nimanka la yiraahdo ee ku nool xagga koonfurta Afrika reedilaha iyo waa marka afka Soomaaliyeed ka hadlayo waxa uu xal leeyahay taabta waxa uu leeyahay afafka la yiraahdo kushitiga xitaa maxaarka xal leeyahay xad baa inoo dhaxeeyo Oromo inoo dhaxaysa af Soomaaliga iyo maxaarku dhulka uu qabsaday uu ku soo duulay dhulka demo inta uu jooga laga hadlaya marka xagga sida qabaylku isu barbaryaalaan Oromo xal leeyahay af Soomaaliga Oromada xal leeyahay afarta xal leeyahay waxa xal leeyahay ilaahay baytiisa tahay afafka la yiraahdo kushitiga ayaa xal leeyahay af Soomaaliga afafka kushitiga afuma dhaxeeyo oo xad iyaga xad leeyahay afafka kushitiga waxa kushitiga cidina aan aqoon waxaan uga jeedaa afka Soomaaligu marka afafka loo sii abtiriyo afka Soomaaligu wuxuu la baahayahay afafka xadka la baahayahay oo loo yaqaano kushitiga waxa kamid ah afka Soomaaliga Oromada afarta Sahuga Booranka reedilaha waxay Sahugu wuxuu ku yaala waxa ku hadla dad yar oo ku nool waqooyiga Kenya oo Soomaalida hadla leh marka abtirsato kushitigu marka uu sii abtirsigado Sahuga ugu dhow abtirsibaha afka Soomaaliga ugu dhow ay isku sii xigaan Oromada marka lagu abtirsibada marka laga hadlayo afka laga hadlayo waxa laga hadlayaa dhismaha erayada mar waxaad ku xagga erayada waxay ka wadaagnaa baadaygiisa oo loonay afafku waxa isu kala xigaan mar wax siyaabaha isu kala xigaan waxa kamid ah mar waxa adeegaysaa inta eray wadaagaan baadaygiisa mar waxa adeegaysaa qawaacidka sida garaamarkooda u sameysmo ay isu kala xigaan oo afafka Oromadu afafkaasi xagga qawaacidka marka sida ereyadu isu bedbedelaan marka ka hadlayso waxa jooga iyo waxa maqan iyo waxa soo socda aad kala dhigayso sida ereygu falku isu bedbedelo si isku mid ah buu isu bedbedelaa afafka isu dhow oo sidaas ay isu xigaa kuwa kale waxa isu xigaa xagga ereyada waxa isu xigaa xagga qawaacidka ereyada marka dibka tirada qaato tirada dibka afarta yaba ay lagu leeyahay Oromada oo waa u fiirsataan isku wada mid bay dhahay oo marka imika Oromadu ay tirayso 20 markuu ka bilaabo xaq Oromada qaar bay iska badan bay iska mid tahay markuu 20 ka bilaabo 20 sadam 40 50 60 afartu Oromadu waxa oranaysaa 40 50 iyaga inaguna waxa leeyahay afarta ka seen u socono ayuu baynu Soomaaliga oranayna كنت كاير يقدر هذا واحد اللي شابوها حق هراء اللي كانوا لما صدق شابه هيدي أنا ما دي وحكا عقل بيكون على سؤالك بس يقول تودي شلتهم بيتيلين إلا هو واحد اللي كنتم سبب تيوالو بركان سبب تبالغ على أفكار واحد شقيسا سبب تيوالو الله حكى لبعض وعوي واحد كنتلون لي عفرتها أو إذا القرآن أبا يقول السيدة أو تريسا عفرتها لو ذاك كنتك oo iguna 20 kontonta laakiin sayagu maxay halkay farqi ka leeyihiin inaga iyo Oromadu 5 waxay u dhaqanaa 5 laakiin saxaafadu waxay u taqaanaa kone waxaan caawa jecelahay caawa halka jilaabariji u caawa halka waxay u yaqaanaa kone 5 konadoodii baa markay gaadhaan de xageer dambe konton noqotay inaguna way la wadaagnay inaguna way la wadaagnay oo kontonku waa garac halkaa ka soo galay afartu inaga soo galay kontonku laakiin shantabka inuu raqlaba inagu ahayd sida caadiga shantabka inuu ahayd inagu aqlo shantabka waayahay marka afafka waxa ay geystay mar waliba tobiga laakiin tobigu waa tobiga ka leeyahay wada interestigu leh waa wada interestigu leh laakiin meelkii ma aha lu socday waxaad qaadataa afkeeda marka uu gabayga la tirinayo alliteration baa iigiye hadalka alliteration baa iigiye marka la tirinayo ereyada alliteration ka la tirinayo afka
Soomaaligu wuxuu ka bilaabay waxa la eega xarfo isku erayo xarfo isku mida ku bilaaba ayaa tixdu leedahay erayo xarfo isku mida ku bilaaba ayay leedahay afka Soomaaligu marka la gabayo ay soo qaadanaysa oo aad tirinaysa marka waaya lixdan wuxuu yiri labaatan wiiliyo nima wali lamaanaanin nin labaatan wiiliyo nima wali lamaanaanin lixdan nima yu fooftiyo nima leeyli raadaynin mar haddaan laba la salay waxa uu laaqaya maxaa kaga lulmoodaa adduunba weeyaan in baa ku gabiyanka laam leebu tatriya su'aalka baysi xarafka uu ka socda waa erayo buu qaadanayaa laam ku wada bilaabma marka laabkii halkeen laga rabaa waxa laga rabaa inuu eraygu ku bilaabo nin labaatan wiiliyo nima wali lamaanaanin lixdan nima u footo iyo nima layli laabkii ku bilaabaysa maxaa maradaalidaba la salayd waxa uu laacaya la xarfahu inaga wuxuu ku xarfo isku mid ah bay erayadu ku bilaabmaan imika gabagan qaatay waxay ku wada bilaabmaan lam bay ku wada bilaabmaan waxa waa inuu sidaa raaco alliteration baa la yidhaahaa gabay maase kasta waa inay taa raacdo laakiin se afafka kale oo ay ku wada aynu dariska lahay ka mid yihiin aan idiin sheegay oromada iyo cafarta iyo ay ka mid yihiin kuwa aynu isku dhownahay iyo kuwa kale ama qasheen oo dhan oo aan isla yeesho waa ka mid carabida ingiriisiga talyaaniga xagga dambe erayo xagga dambe wuxuu ku dhamaadaa gabaygeegu erayo xarfo isku mid ah ku dhamaadaa keenana waxa weeye xarfo isku mid ah ku bilaabmaa eraygu waa weydaan inagana xarfo isku mid ah ayuu ku dhamaadaa oo xagga dambe ayuu ka raacayaa marka uu ka raacaya baanad sucaadu fa qalbi al-yawma matbulu كعب بن زهير وحصلت الملك وخلي قصيدتي سي نبي قال كديلي يكون كل جودي عليه يا أخا قبيا قوي واقيها كعب بن زهير ابن أبي سلمى قصيدتي سي ديال عجيب كهيدي والنبي قال كبر حوسلي مكي ليلي والجودي بل النبي قال لي ولكن بجير بن زهير بن أبي سلمى أيايدي وأنا وحبكم يا النبي قال تيسول النبي قال عيدا بالليلو وحب النيدي قاجيب حلالية أهدر الدم كمالي قصيدة مثل عيد هي بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مقبول قصيدة كبيرة بطا وكونري اقلام بك ولا ما ليس أقول مهلا هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل اقلام بك ولا ما ليس لا بك ولا ما ليس إن رسول الله أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول لا تؤاخذني بأقوال نشاتي ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل إن رسول الله لسيف يصداء به مهند من سيوف الله مسلول وحكى دبوه خير قليا كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول laabka halku kala eeg laabka xaqi dabuka galaya xaqi laabkeedii kalena adigoo lugooya waxa lumiye mooyaale waligiiba liibaan ma helin wili laasib xaqi uu dadka galaya waxa la yiraahdaa qaafiyad baa la yiraahdaa marka mid qaafiyad baa la yiraahdaa afcaaliga fiisana waxa lagu raayim baa lagu yiraahdaa كاننا وحنا alliteration وحاجة هروقلا مركا يقولوا على هذا ما صدي صومالي كذا الله الله تحدي ترابط بحكي كل دوين تحدي ترابط لما بروح حكي كل دوين المدلا لسوح تمدلا على سوحيا طلبات وحكي كل دوين تحدي صومالي وحي لا هاي حرف راء هدي حرف كلا جبحه وتشبيسا ما صدوا وتشبيسا هدي حرف كلا كو حرف كلا هل كواحد كوستي تشلا يا إله إلا الله وحنا سيجلي كليلو حرف راء عسى يسقط برق حرف راء على شروط فلا بضله أو مركو ما راعي مركو لما نياش راعي مركو راعيو قبل تحنا مركو راعي يصير الله سبحانه لما حرف راء على يسقط عذك أو لبا
حرف waxa lagu yiri ninka la yiri waxay itixaan ku tahay xaraf raaco xaraf kaliya lagu ololayaa qaado oo af Soomaaliga ku jira af Soomaaligu waa 230 xaraf waxa lagu leeyahay xaraf kaliya raac hadana ha ka bixin ujeedada macnaheedu marka waxa laga rabaa inaad hodal tahay hodal afka inaad hodal waa inaad haysato vocabulary-gaagu bedel hadaad gabiga ha ka gabayso waa inaad haysato kiishna loo wada haadi hadii kale waa badxina waa soo xirmaysaa oo waad xirmaysaa oo waxay kula galaysaa af carabi bay kula galaysaa ayaa fidibi oo waxa arkaysaa ninkiyo carabi bila ku rafanaya markuu af Soomaali waayo ayaa carabi bila kaaga rafanaysaa ay kaaga rafanaysaa qaarada waxa bay ku tiriyaan baaf oo dadka af carabiga u beerahdaan af carabi ku yara badiyay baaf Ingiriisigu waxa ku muuqanaysa hodanimadii baa ku yar oo xarafka la yiri ka hadal ayuu ka waayay xarfo badan halkaas uu kalmada carabiga iskaga yara bishlaya ama midkiioo hindiya haduu de hindiga oo helana uu bishlaya waa iska oray oo uu galaya qalaba isu gabiyay reer magaalka isu gabiyo halkaasa شيء بقولوا إلى في إنجليزي كبرتة بي أبايا في ترى أو بي أو كعي أيها إلى البي استرداء يرى شخص وهايستا ما كان سوى حيكتلي هكذا كسبود تعيار تصوح يسلا ذا كي لا يبلو لحظة صوخ كعيدا أو بيت كعه لك على البيستي ما كان سوى ولا تولي وشجيسا واحد تري كرتي كل بعدين كرتي ولا ما مقال ولا ما تولو كرتي كل بعدين واحد تري كرتي كل بعدين واحد تري كرتي كروري بيتها كرتي كروري أيام كل ما ودو بيتي وتولى كلا إن كير البيجا وحلو مقالو شيطان يتريج تولو يكون كذا أبو كون مقاسي سيري الوقت كحلا ده بحال تبيسا أفضل نكون حد بايو أفضل وهو سيري يقول ده في جلسة قال يقول في جلسة كو بدوسه وهو يقولي أفتن ويس كول ويس بودي أفتن أفتن ويس كول ويس ألف بودودا كولي إنجليزي لما برسوري ويكوادك تايبود كولي hadduu afku ka noqdo sooray way ku adag tahay waa mashaakil oo aad xarafku kugu adkaado aad sooray way ku adag seerka ina afgiriiska u yaqaana haday ka noqoto waagta waxa higaadu xaraf raacu wuxuu ilaaliyaa wuxuu cadeeyaa hodannimada qofka gabayaaga ah oo waxa la doonayaa xaraf kaliya isagoo oo ka bixin marba waxa kugu soo baxaysa qolooyinkiina isku dayday higaada imika qaar way halka way fadhiyaan baa laga yaabaa rag isku dayday ragiina bilaabayo waxaad ku marba kalmad markaad beedkii soo yara listo ayaa waxa kula kulmaysa kalmad baa kaga macaanaanaysa mahshi aan xarafkii loo baahnaayde ayaa markaas si Allah si aad u diido garan waysa kalmad xarafkii ku galimayso markaas ay barbarkii qaar carabi baa kala bal ila ducaanaysa marka ducaashay ku gabaga lama ducdo walaga hada ducaato ixtiraaho saala yari ka soo dhaxday gabay baa marka raga qaar balay ku xadagtaa ninka gabagiisa marinayay laha rag waxaan ku maamulay qaranba ku maamuusi ninka laha min buu ka gabayay markaas waxa soo gashay wuxuu siiri dhaaro oo wuxuu duliyaa wallahi billahi tallahi buu siiri والله بالله تلاي بدنا ميبكي وقلبي سدي حقبي وقصق لا waa miilay rag waxa ku maamulay qaraamo ku maamusi masayna loo tolo ma meelta loo tahay wadaalkii ligeelo waa kaga bagal markaas wuxuu sii dhaaro ma galba saddexdii markaas duu garay wallahi billahi wuxuu yiri saddex magac alle xaajada la marisiye buudi balagada xaqu kaga yibi intuu iska wada tulay wallahi billahi ayuu miinkiisu u galay ha u dhaartay ninkii u dhaartay saddex magac alle xaajada la marisiyo farshaxanka bulku halku ugu tagay daawo si uu miimka ugu si aanu miimkii ugu bixin ayuu wuxuu soo qaatay khayaalkiisii magac saddexdu waa magac ilaahay buu markaa magac baa u soo baxay beeshi waxa uu ka hadlayaa waa magac ilaahay magac hada waa magac waa miimkiina uu ku jira way ku galaysaa buu yiri saddex magac alle buu xaajada alle wuxuu kaga maarmay wallahi billahi talaahidi waa halka ay ku jirto farshaxanka gabayaagu nin kale oo gabayay ayaa ilaahay buu bariyay markaas waxa soo martay walahu al-asmaa'u al-husna
فادعوه بها بآيات قرآن التلاوة وله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي وحليه هي مقاعد أسماء الحسنى إله كبر يا بالي كبر يا إلهي بخبر يسال إلهي يا رحمن ويا رحيم ويا ود إلى كبر يدو مقاعد إلهي بالكبر يا بآيات قرآن بخل الله بريسو بخل ساقب يجيس لو بعلي بابا مسكين بالي تيا بقول كيا وهذا ذا صويا وبعلي بكتشا بس غالية سغاش مسؤولي أول بسيء هاي سغال مقعد هاي سغالية سغاش اللي بعلي ده لدي سكلي باي ماشي لو واضح حرف قدي ما الله بير سغالية سغاش كي كلا بكرواي وحوري بقول كاجا مقاعد متكلا يا سلام